soo baxaysa farxadaada sababtu mise Okay, think go ahead okay, okay. Oh, we said the same time. Okay, sorry. Okay, waxaa dhahday dhawaanadaada quruxdaada baxaysa misena like farxadaada horta farxadda lagu sheegaa waa qayb ka mid ah nolosha waa u baahan tahay maamulba inaad faraxsanaantid so ani ahaantayda farxaddeeda waxay sii zaa'iday ama quruxdeeda waxay sii zaa'iday marka aanan ma aragtay qof aanan u qalmin ama ma aragtay inaa agtiisa ka dhawaada ama xitaa inaa xiriir ama wax la sameeyo ma fahantay isku dayo like hadda ahaan let me just say in a short way like quruxdeeda waxay u zaa'iday ama farxaddeeda ay u badnaatay I just like waan reestay dadaan ii qalmin aan ogaaday like inaa levelkayga yani hoos ku dhigo maaha so waxaan odhan daacad baa tahay daacadnimadaada lagu qaatay that's why qofka daacadda ah mar walba yani wuu faraxsanaadaa waxna ma waayo you know hadda marba daacad tahay waxa waynaysid ma laha markaad xiriirkii aad gooysay iyaad noloshu ku hagaageen oo ku hawlgaleen quruxdaadii soo baxday farxadaadii zaa'iday even your follower in couple months in 1 month ago you were 700 something like that 700k okay let me just guys being honest and Ram because I had that was my first love and alhamdulillah hadartan like marka like wixii runta ay dhabtay marka ogaaday like wax dhan nolosheeda iska bedelay like inaan horumar sameeyo inkasta like horumarkayga yani inaan dadna tusaynin badan inaan horumar sameeyo secretkayga like I think I just do my own thing ma fahantay so xiriir markaa ka baxay oo yani waxyaalahan aliko I just bought my own house number 1 my dream house alhamdulillah the second thing I have my own محلها job alhamdulillah the third things I only do my محلها my business nothing else and I enjoy my life and I help my family so yeah adigoo single iyaad waxaan oo dhan yeelatay oo Africa waliba adigoo Africa joog adigoo gabadha waxaad yeelatay guri your own house I think waxa gabadha social media oo Soomaali dhan hadii la maanta oo social media isticmaasho ina eragan dhamarabin laakiin hadda waa dhahaa kusoo ku qasbanay ina ogaataan dad badan waxay u maleynayaan inay been tahay but there is nothing so marka gabadha ugu horeysa oo Soomaaliyeed oo social media isticmaasha oo waxa ahay her own house gadatay her own house ma ahayta it's kind of lakin I know that there is a Somali woman who are very active on social media have their own business yeah they have only business but they can't buy house they can't buy for example a car. I know those 3 women like 3 females Samiha, Natasha, you Ikra also they are from Nairobi like you yeah I don't think Ikra she has a business no but the other 2 they have their own right they got their own business yeah they are very very good محلها قبل fiican waaye in lagu daydo yani way fiican tahay they're so good in محل business okay adigoo waad tii saddexaad baa tahay baad ka dhigan tahay marka I can say I'm the first person I can't say that because I'm not the same with them level because we already know them Samiha and Natasha they have their own business they got from the social media they like first they started TikTok and then YouTube and then they already famous on Instagram right yeah of course that's true
I think the business I do is more than it's higher than business. What makes you different is like in short period of time you become famous, you got more followers. Maybe you can say I'm the first woman who bought my own house. I don't know about the house. Yeah, of course, that's true. I'm the first woman, Somali woman. I'm the first woman who بالله bought عليك. her own house. Alhamdulillah. بالله عليكم يا جماعة تابتا شير كوبلين يقولها. You know, everybody ram, you know. The other thing is what makes you different. Let me tell you. Okay. You can speak more language than them. Truly. You are very influent in English, in Somali, in Afan, Oromo, in other language. Yeah. Thank you. You can speak fluently of Afan, Oromo, Somali, English, by the way. Those three languages yours. Gabadh ugu horeyso oo Soomaaliyeed oo Kenya ka soo jeedo oo social media aan ku noqotay guri gadatay waa gabadha aad arkaysaan Queen of Ajuran. I forget you can speak fluently Swahili, right? Yeah, of course. 4 language. No, I know how to speak 7 language fluently. Tell me the other 3 language. Okay, first is Oromo, second is Somali, third Somali. English, Kiswahili, 4 Arabic, Indian, What? and Turkish. तुम हिंदी बोलता है मैं हिंदी बोलता है Sachi? Allah 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 kabamte Amisha afaan hindi beektu tahay मैं तारुगा अरे यार मैं हिंदी नहीं हूँ क्योंकि मैं हिंदी जानती हूँ ठीक है ना ana inte ko barate no कोई बात नहीं है यार John jolle film hindi lala guddate san innanta फंसा है tap share copying gorane Rachun tralat jabanani papa jabon tap share copying gora okay زيت su'aashan hadda ku weydiinayo afaan oromo ma finteen dubachi beeyo su'aashan hadda ku weydiin raba waad ka jawaabi kartaa waana iska dayn kartaa Hi waliga Shafal, thank you for the rose waliga ma guursatay Maya hadda hor no ilmo ma leedahay no